aad baan idin salaamayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantiin qof kasto maanta halkan iga daawanaya salaamayaa qof kasto oo maanta aanan aqoon isku lahayn oo dusha guud iga yaqaana oo arintaydaas si walaalnimo uga damqaday ama si ibnaadinimo uga damqaday ayaan halkan ka salaamayaa ugana mahad celinayaa aniga xiis baa la dhahaa xiis maxamed axmed baa la dhahaa media hasan isticmaala inta xogaga aliya way tahay intaan aqooni lahayna barasho wanaagsan lambar 1 maanta arinka aan rabo inaan ka hadlo oo ka sheekeeyo waan ogahay kul qofba meel buu qaadi doonaa qofba meeshu doono ula kici doonaa oo wax weeyaan Soomaali ilaahay ma qancin kara ibn aadan ma qancin karo laakiin aniga hal mid aan ka sii aaraaranaya oo caawan halkaas dhiganaya aniga xiis markaan ahay oo aan hadlayo qabiil halkaas ka jooga qabiil halkaas ayaan ka jooga xiis ba hadlaysa hooyo Soomaaliyeed baa rabta caawinay hadasho dadkan soo qabsanaya bliis daaya walaalayaal hooyo Soomaaliyeed ayaa rabta inay hadasho laakiin qabiil iyo in la igu soo lifaaqayo in sheekadayda dhinac kale loo qaato waan ka cudur daaranaya waa qodobka kale noqotay arinka aan halka ka sheekin doono dad baan isku seegi doonaa dad baa iga hiilin doona dadkaas baan la hadlayaa sheekadaan hadda maanta ka sheegayo ilaahay markhaati buu ka yahay casiisal wajalluhu markhaati buu ka yahay eray been ah oo aniga igu soo noqonaya beentu hal lug bay leedahay laba lug ma laha beentu hal lug bay leedahay hal taa lugna way jabtaa wax aniga igu soo noqonaya ama ijaafo gaaraan wado ama waxaan xaasidnimo ka wado ama waxaan wax ka raadinayaa ma jirto anigu fiiso ma buko Soomaali maxamedina maalin kasta halka ka dhado uma buko wax kaloon u buka ma jirto laakiin waxaan u buko on rabo inaan Soomaali maxamed gartayda halkaas u dhigto haddaan qaldanahayna inay qabtaan haddii leega qaldan yahayna inay ila arkaan ayaan doonayaa oo sheekadayda aan qabiil lagu soo lifaaqin waxba lagu soo lifaaqin halkaas baan ka taaganahay qodob ma yahay dad badan baa le aamus caawa ma aamusayo sanad iyo 4 bilood ayaan aamusnaa sanad iyo 4 bilood baan waxeerinay sanad iyo 4 bilood ba afkaas leeyaga taagnaa laakiin de ibn aadan baan ahay qofku haduu ibn aadan yahayna si kasto uu dulqaato mar uu qarxi anigu waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed maanta ma ihi xiis hooyo Soomaaliyeed baa karteeda idin dhiibanaysa Soomaaliyeed sheekadaad wada ogeydeen ee meediyaha ka taagneed ee meediyaha ka dhacday ayaan rabaa inaan qodobeeyo horta xabiibkeeni maxamed ha lagu saliyo waana idin wada salaamayaa soo dhawaada sheekadana saas baan idinku bilaabayaa sallallahu alayhi wasallam aniga sheekada halkaas ka dhacday ee la waday Soomaali maxamed markhaati bay ka ahayd Soomaali maxamed markhaati iyo korkaas ay ka eegayeen laakiin qofkii ku dhacday wanaagna ha ugu dhacdo xumaanna ha ugu dhacdo wuxuu doonaa ha haye horta qofkii aniga buu ahaa halka baa la joogay habeen ma soo doodin wax Soomaali maxamed oo dhanba kalarkaas iga laadlaaday anigoo 4 cisho umulan oo la qalay oo hadli karayn oo waxaan ku halka jooga oo nabarkayga qoyan yahay oo xanuunsanayo bad kalarkayga iska kaylaadlaadiseen mid idulma mid caaya mid aflagaada iyo mid hiiliya buu lahaa arinkaasi
سميدان كرن قف بمش دوني ولا كعب وايح سومالية أنا ما أنت شيكة أنا دينك شيكين يوم وشيكو أن ديديني إن بدن ميريا تمادو إن بدن بانكاها جوكتي إن بدن أيان كاها جوكتي شيكة داس إني ميريا تمادو ينن كهالله فاملي بان حيري تولني مان حيري حيدني مان حيري قبني مان حيري وحكستا أيان أنا قد كذا سارتي أنا هالكا إيه سارة هيه ظلمنو حيسي عامس حيسي تنازل عن أري لكن ابن آدم كيلي حدد آمستو حدد حشوتو تقني مي كاموديان سعسعني مي كاموديان horta dad baan maanta halkan ka hadlayaa sheekadaydaas qofkii dadkii lahaa inantaas ilmay dhashay inantaas ilmaha inankaasi sheeganaysaa dadkaasaan rabaa horta maanta inaan shaafiyo waa qodobka labaad hadalkayga si fiican u dhageysta anigu xiis baan ahay keligay baan ahay haddaan maanta halkaa fadhiyo ninna خدك ميقول لي خدك ميقول لي ها Soomaaliya ninna waa nin ceebta leh ninna waa nin ceebta lagu tiro ninna waa nin ceeb leh ninna waa nin lagu tiro ee gobonimo la isdheeriyahay anigu maanta naftayda ma difaacayo waxaan ahay hooyo la'aan kortay dib badan soo aragtay waaye badan soo kortay oo ilmaheeda xuquuq u raadinaysa hooyana ma jecla in ilmaheeda la ijaafeeyo hooyana ma jecla in ilmaheeda la caayo waxa halka iga wada daawanaya hablo Soomaaliyeed mid guursiga mid la qabay mid ilmo dhashayba haddii ilaahay laga baqayo waa la istareemaya aniga tamaanta aniga igu dhacday tii shalay igu cayday inay ku dhici bari iyo inay takay dhashay ku dhici ilaahay baa og anigu laakiin si anigoon ceeb lahayn baa la rabaa in ceeb la igu tiro haddaad igu maagisaan iyo haddaad sii jaafeynaysan iyo haddaad sidaa doontaan yeelisaan caawa garteedan halkaa idiin dhiibanaya gartayda i akhrista haddaan qaldanahay dhinaca hay saarinina ee qaladkayga igu fura haddii kalena ila eega Soomaali Maxamedi anigu Hargeysan ku noolaa Hargeysan ka shaqaysan jiray Hargeysan deganaa waqtiyada kamid ah waa ogeydeen aniga problem family bay haystay waaye adag baan ku jiray marmar kamid ah waan igi waan istilayaa ka bacdeen waan igi Muqdisho aaday waan shaqaystay Muqdisho aaday Muqdisho waqtiga aan tagay ayaan idinka biloobaya Muqdisho markaan tagay xiistaan halkan caawa rajada la may ahayn xiis waxa Muqdisho tagtay rajooyin badan haysata wax kasta haysata Soomaad garan oo waxaan ku ri hami leh waxaan rabay inaan Turki tago Turkina inaan kasii tahriibaan doonay halka kasii tago lacagteedan watay Muqdishaan ka degay inankaas aan nolosha maanta ku midownay ayaan Muqdisho isku aragnay waana nisnaqaanay Muqdisho marka aan tagay ayaa waxa dhacday anu kaliya waxaan u baahnaa in la iga caawiyo safaaradda hadday tahay muxuu ahaa because anigu waxaan tagay meel aan cidna ka garanayn hooyana ii deganeen aabana ii deganeen cidna ii deganeen Soomaali Maxamed dadaan diinta islaamka naga dhaxayso oo aanan weligay tagin oo markii iigu horeysay ahayd ayaan tagay meeshaas markaan tagay oo aan Muqdisho joogay ayaa waxa dhacday waxaan inankaas isbaranay oo aqoon waa isku lahayn
laakiin dee isbarashadu waxa weeyaan laba qof bada marba si fiican isku fahmaan oo aad la isku dhexgalaa oo aad la isku fahmaa Soomaalidan garanin inankaas baa waxaan ka codsaday inuu muxuu ahay maadaama dowladda Soomaaliya uu ku jiro cid kasta ka garanayo inuu hawsha Turkiga hore iigu dhameeyo hawshii Turkigii ayaa waxa dhacday sheeka ka soo hormartay way habiigu yiri sug ayaa waxa dhacday inankaas Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan ayaan hawsha igu garab baan ka siinaya hawrwarin meeshaadii baad joogtaa beledkaagii baad joogtaa ana inaad arkaa caawinaya waaya sidii bay hawshii ku dhacday hawshii hawl baa ka soo damartay calaf waxa la yiraahdo cid baajin kartaa أنا إسكودينا باتشيو لكن ما يدعين وح إلى هاي وطو وقف باتشين كرا ما جرتو إنكي ويقول ده هاي تهريب إيو سلع إيو سحرير إيو محاو حاكو مرينيا أنيقا كودا مينيا أنيقا شو ما تنسفي عنه هنا افتيك انت أنيقا كودا مينيا بويري إنك حسي إنانا hawshaas ana ku dhameynaya waayahay ka bacdeen inankaas xiriir baan wadaagnay xiriirka markaan wadaagnay guur buu isoo bandhigtay guurkiiba markaa waxaan ku dhaxay Ilaahay marxaatiga yahay Ilaahay hadduu caawa ii hadlayo rabbiga samaawaadku hay hadlo aniga caawa aniga hay soo qabanina walaal hay hadlo waxaan ku walaal reer baad leedahay reer ayaad leedahay muxuu ahaayay dee walaalo dee macquul maaha aniguna haddana cadaab ka soo baxay cadaab kale walaal ayaha hay gelinin markaas buu wuxuu ku dhahay annin baan ahay anaa waxaan doonada baranayaa anaa noloshayda maamusha qof iska kayleeh ma jirto anigu anaa dabaranayaa kaliya fursada isi darajo badan buu igeliyay wax kasta kama sheekayn karo laakiin rajo badan buu igeliyay okay baan yiri waa si fiican haye hawshii baa markaa aabba la hadlay aabahayna ololihii awlihiisi baa la waday samad garan oo muddo weyn ka bacdi baa waxa dhacday inankii dad waxaan noqonay aad isku fahmay aad asxaab u noqday ehel iyo asxaab aad anuna waxaan iska dadka iska naxariista badan dadka daacadda ah ma garanayo noloshu wax kasta mar kasta waa dadka ugu dhaawaca badan leh dadka munaafiqiintii waxba ma gaaraan waxba kuma dhacaan sababtan anigu waan garan waayay laana anoo dee hadda ka soo baxay nolol adag oo markaa uu rajo haysta oo isla noloshu hadday ku saxmaysaa oo noloshu hadday xiisay walaalay ku hagaagaysaa ayaa waxaan galay nolol aanan ka hubsanin oo laakiin dee bilowgeedu aad u qurux badnaa aabahay baa wuxuu yidhi markaa safar baan ahay halaysugo inanka Nimcaan inantaa ay wada joogaan ayaa waxa dhacday hooyadeed baa xanuunsanaysay halkan gobonimada ka sameeyay laakiin intay igu noqotay baan idin sheegaya caawa waayahay kabacdi hooyadeed baa xanuunsanaysay markaa buu igu yidhi hawshaas jirta waa ka oo inuu buuxo doonay markaa baan dhahay okay orod iska bax markaad soo laabato
dee guurkeena iyo hawsheena aan dhamaysan aan taaturka iska sii tago meelaha kaleba aan isku geyn qasbiyan dadku ma haddii isguursadaan inay isku meel uun joogaan imisa isqabaarlada kala jooga maybe budi ma baxayo budi uma tagayo ilaa aan hawshaada sii dhameeyo laakiin adigu hal mid iigu feebar samee nin ehelkayga buu ahaa in adeerkay ah ayuu ahaa hal mid iigu feebar samee buu yiri waxaan ku maxay tahay wuxuu arrinkaas inaan meediyaha la soo dhigin inta aan noqonayo oo beledkii aan joogay aan ku noqonayo oo reerkii u noqonayo maadaama oo waxaan ku ori inanta hooyadeed bugto ninkiiba haddana guursaday haddana sida waceeb bay ugu yara tahay marka in adeer ii feebar samee haye baan idhi waay aniguna xaq uma lihi nolosha hore ayaan ka hinaaso because waan ugu galay reer dhisan intaan dumiyo anaa labada dhow anigu tanaasula waa qaatay sidii bay hawsheedii ku dhacday sidii ay hawsheedii ku dhacday waan qaatay aabahayna sidii buu ku yidhi aabahayna wuu nala qaatay wuxuu maxaa meediyadii waxaa naga galay haddaad labadiinaba isku qanacsan tihiin oo labadiinaba habbi isku tihiin maxaa meediya iyo dadkaas iyo naga galay khalaas waaya hawshii sidii bay ku dhamaatay muqdishoan ku aqalgalnay muqdisho markaan ku aqalgalnay ayaa waxa dhacday xataa hees baan soo wada qaaday inanka Soomaali Maxamed cid wuxuu sheegtaa anigu ma garanayo qof inta aan wacay aan nimcaan baa iskuursanay hebelow ma jirin nimcaan cid kastoo iga xiray cid kastoo rafiiq lahaa buu iga reebay cid kastoo aan aqaanay buu iga reebay nolosha wuxuu igu soo xiray guri keligii aan ku ahay anigu haday xaaskiisu soo wacdo halkay ahayd inaan muxuu ahaayay masayro ama aan waxaan ku hurdee aan cadhoodo سامي مغلسان تلفونك وحو يقو تيرسانا بالا دين عانين كي غيربان اسكاغا تيرس يقرا لي هذا شيء كان يدين ودي إن أنتاس أنا جو حق وملهي إن حين إيحاس تكون نقطة وأنا صومالية سمات قرن مركز أنا جو حنسميه أنا جو هالكاس أنا فردي هالكا كل حد يشرين معاه أنا احترام سين شرين أورنجري ويصوّع ساعة مركبنا أورنجري كقبو لا هذا العادويان قلت وصبح احترام سي وايها أنا جمرك واحد إلى تحي أنا جم أركيا إن عند قناة سمينايو وحن أركيا إن عن غير بدبادينايو أن لا هاي محو هاي أنت إن تحنوسني صو يديد بكتو وأنا ولا شايو كلا لا دري النقو حيسي أوكي سيدي واحد عضي إن أنت مركب مؤجا حوشة عدي وحبة مؤجا لكن ريركو جوي أوجيهن أنا ريركي جوي أوجيهن أصحاب تيدينا إن حجوا قالوا وأوجتها لكن أنا ويجرب ما هي سكرت بيوري ميل ما تيجي كرت بيوري ميل كل جامع بيحكي كرت السجا بنت بس حضا هدو ميل هدو عادية عليهم مدحتوية عادية لهم ميل عاد أنا السجا ده بس حضا رفيق لملي أنا السجا هاي سيدي واحد عضي وتجي شكله وايدين سوق عقابين هاي نحور كان ربعين يدين جالسين وان نقضي مركون نقضي أنا ولع بيجتكي أنا ولع أي يجتكي
waayahay waxaan heshiiskaygu ahaa waan idiin soo gudmaray marka aan tago ayaan wax walba soo shaacinaya anigana waxaan ku gardhiganayay maadaama aan maanta media joogo arrinkayga qarsoonaanen ilmahayga la oranayo yaa dhalay goormaad guursatay waxaasoo su-aalihii inay xadhaan weligeed baa gabadh laysla guursan jiray weligeed bay dhici jirtay anigu maan arkin waqtigaa dee wax weyn waxaad yaraysato ayuunbaa wax weyn kugu noqda okay inankii wuu tegay markuu tegay sheekadii baa sii dheeraatay wuxuu ku dhahdaa maalin kasta inanta hooyadeed way bugtaa gurigii buu soo qaraacay inanta hooyadeed bay haynaysay okay anigana waxaan taaganahay dee uurkayga wuu soo baxayaa okay markaasaan waxu sameynaa markaa wuxuu igu yidhi waxaan sameynaynaa xiise ilmaha marka uu dhasho tahniyadoona ha lagu naxo waa la qaatay oo igu qanciyey waan la qaatay haye baan idhi masaas ahaa haye oo igu qanciyey waa la qaatay ilmihii muqdisho igaga tegay horta waan isdagaalnay oo anigu markii uu igu dhahay inantii weli way bugtaa dumar baan ahay anigu waxaan taaganahay dee waa adigan la jooga iyadana la joog arrinkana runta ugu sheeg anigana waa kan markaa commentiyaal laysoo qoraa dadkan dad wuxuu sheegay ma garanayo markasta wax laysoo qornaa ma uurbaad leedana ma saa tahay ma adigan sidana adduunkan warisma qariyo aniga wixii waran bay igu tahay because ha sheegin bi igu afka 2 liiro saaro ayuu igu dhahay gurigu igu dhaxayaa gurigaas qof ibn aadan iima yimaado qof iima ogolo inaan la hadlo qof ma ogolo inaan la kalaamo soomaad garan kan talada weydiisanaya waa asagi kan baahidayda daboolaya waa asagi ka wax kasta iyo waa asagi cid kale ma aqaani qof kale meeshaas kama aqaani okay waayahay waxay sidii ahaataba inankii wuxuu igu yidhi hadda macquul maaha inantii weli hooyadeed way bugtaa ma samayn karo aniga markaa waan cadhooday wuu iga aamusay meeshii buu igaga dhex aamusay muqdisho aan cid ka garanaynin kira layga doonayo wax kasta layga doonayo ayuu xusameeyey inuu meeshii dareensiyo maanta inaan anigu dee baahanahay la-anna Soomaali waxay tiraa qof baahani gob maaha la-anna xaamilaan noqday walac baan ahay waan culusahay waan xanuunsanayaa kiraa layga rabaa ma shaqaysan karo beledkaygii maaha ma garanayo cid kama garanayo asaga qof aan ahayn anigu ma garanayo asaguna in adeerkii baan u aqaanaa nin dhiigaas igu yaalo nin dir ah oo in adeerkii baan u aqaanaa ma ogi inuu aniga wax ii wado okay meeshii muqdisho waan iskaga soo cararay waxaana baahideedii daboolay habartay okay meeshii baan iskaga yimi Hargeysa markaan imi weli daacad baan ahay anigu weli rajaan sii leeyahay waxaan leeyahay xiisay inankan waxa weeyaan wuxuu xirinayaa bal tanaasul bal qaado bal waxaan ku iri saa samee ana tanaasul kale Hargeysaan imi Hargeysa marka aan xamar joogo waan ku dhex goostay waan idin sheegay Hargeysaan imi oo la soo xiriiray markuu ogaaday in Hargeysa tagay nimcaan u daawanaya maanta hal dabeecad buu qabaa halka dabeecad waxa weeyaan meediyahaas ma ogola WhatsApp-ka markuu arkeen wax qaldan yihiin markiiba saxdii buu iska dhigaa markiiba wuxuu wata beledkeedii aaday doonay imkaarinki la soo buunbuunay markii wiila saadla shadan kaskana ana dhameynaya waa kan hay adana waa yaraan xiisamaanta wad culus tahay halkan hooyo iima joogto habar yar iima joogto cid iima joogto waa aniga oo keligay ah oo noloshayda anigu isa soo koriyay noloshayda anigu aan soo koriyay aan isa soo dabaray
ما قاد كرين سلع كلا إيه سحرير كلا ما قاد كرينين إلهي واي مقليا ما قاد كرينين هذا نوان مصي وحنا أوكي سوق حيسي سوق بانتا إنكي وحي قد عريعي إن أنا حمام ودين إنه الممر كل شيء سوى تهني دينيو إن حول كفريهين واكن حيه سيدي waxaan muddo ku jirnaba waxa dhacday wixii gol muqdishaygu kaala soo noqo ana halkan waxa ii yimi inaan maadeernahay samaad garan inana waan qabsaday barkaan inta qabsanay ma ahan gurigan shaqo xataa uga baahanahay inaan wehel ka dayo guriga keligii aanan ku dhaxwaalan ayaan nidhi inaan halay doono inaan halay doono kaliya inaan taas halkay dadku shaqaale u qabsadaan inaan ayada wehel ka dayo ayada inaan wehel ka dayo oo weheli ahaato aniga intaas iska joogi jirnay markii aan soo dhawaaday xaaladeyda ayuu guri muqdisho igu kaalay muqdishaan tagay muqdisho markaan u tagay ayaa inanka wuxuu samaynayaa waa xawayaan dadka waala waa dadka waala halba halka nabarkaaga ku yaalo ku taabanaya soo sadan mitiid yaa maanta noloshaada ku xidhan qofka qureed haysata soo aniga ma aha midka dawaanaad ii samirta aniga waa runtii waan leexiis okay waa runtii cid kale ma haysati qaado hay waxaan sameeynaa inaadeer waxaan sameeynaa ilmo markuu dhashan soo tahniyadeynaya sheekada halka ku dambabas waa ka muqdishaygu kaalay muqdishaan u tagay muuqaalka maanta hadaanan meediyaha soo dhigan lahayn nimcaan waa idafiri lahaa keligay baa meelan galan waaye Soomaaliye waaba anoo ilmo laadlaadinaya oo sidaas leh ilaahu ma leecaayo ilaahu waan ogahay inaad halkaas qaar badan caaw farxayaan laakiinse wax kasta waxay iga muhiimsan xuquuqda ilmahaygan maanta ka sheekaynayo anoo keligay baa meelan galan waaye waaba anoo sidaas leh waa ilmo qaylinaya yaa albaabkayga furaaya cidnayga ma furayso dadkuna waxay isku wada jecel yihiin marka dhexdaada ku yarta iyo marka xoogaaga maalayso Soomaalidu waxa la ninka quraacda haystay qadada ugu daraan muqdisho markaa ugu tagay aan la gardhigtay inaad waxaan adigu sameynaysaa sometimes wuxuu sameynaya guriga markuu tago oo inta kale la joogo wuxuu koonayadii baa joogta waa kan dhira waxaan aqliga gelin buu kula wuxuu ku qoray way ku dareentay sidaan kale waan ku soo wacaya waxa tiraahdaa waxba nagama dhaxeeyaan yaani qof ibni aadana si aan laga yeelin iyo wax naag ibni aadan halka joogta aan qaadateen baan qaatay waayahay muqdisho markaan tagay inankii aan hadan nimi wuxuu sameynayaa inantii kala sida uu yiraahdo kiiskan uu dambiso anigana aanu ii dareensiin aanu marba culays ka saaraya waa aniga ana waa ku galay Soomaaliye ina yar uguba aan hore wax u soo dhalin ayaan ahay calooshu halkaas ay maraysaa meel aan ka doodo meel aan ka ordo meel aan ma jirto ku qabsatay baa la yiraahdaa wuxuu sameeyay inankii waa isqabsanay hadana waa ka heshiinay muuqaalada aniga soo duubay xamaru halkan joog buu igu yiri waa ka inta kale waqtiga markaa waa ogaatay sheekada iyana masayr bay cirka maraysaa markaa waa kamar buu iga sheekeynaysaa saambay tahay kan kale waxa uu saambay sameynaysaa xiisaysan kale bay wadaa okay markaa waan tanaasulay markasta meel ka adkaato qofku ku soo baxsanay aniga bay ahayd because wuxuu go'an jiray inaadeer tanaasul sanad ku sameeyay haye hargeysaan ku soo noqday waa video ka arkaysan waa maalintii soo sabootinayay hargeysaan ku soo noqday hargeysa markaan ku soo noqday ay wax kasta isbedeleen